waxaan yidhaahdaa waxa qofka uu geliyo waqtigiisa waa waxa outputka ah, waa waxa u soo baxa. haddii marka noloshaad waxba iska bedelaynin, nolosha ku dhaqaaqaynin, wax walbaad u malays inay istaageen, qodobadaa dib u fiiri. qodobadaa dib u fiiri. horta xaggee geliyaa 24 saacadood haysto, horta xaggee geliyaa. saaka nin baa waqti u helin, waqtigaas nin baa helin. 24 saacadood nin baa helin, saaka waqtigaas nin baa sariir ka saaran oo naafo noqday, nin baa dhaawacmay, nin baa yani xanuun ku soo booday ayaana u helin. ilaahay wuu siiyey still waqtiga wuu haystaa, laakiin meesha ku bixinayo waa xaggee, waa sariir buu ku bixinayaa. qaar baa godka ku qaatay 24 saacadood lasoo jaangooyey oo la duugayba salaada duhur lagu dukaday, casirka lagu dukaday. ya aabuu dhammaanin 24 saacadood, adigu 24 saacadood baa lagu siiyey. weli koonka baa waqti lagu siinaad yani dul saarnaato. marka xaggee waqtigay ku dhumiyaa, maxaan geliyaa, maxaan geliyaa. assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan. waxaan ku rajeynaa inay maalin qurux badan ku tahay. jimca mubaarak, waa maalin jimca alxamdulilah. salaada jamica ayaan kusoo tukaday masaajidka. xalay ayaan qorshaystay inaan waqti hore inta tago aan juz qur'aan ku akhristo, kadibna salaada jamacaan kusoo tukado. alxamdulilah ilaahay wuu waafajiyey. adigana sidoo kale waxaan rajeynaa inaad salaada aad jamaca kusoo tukatay oo aad juz qur'aan akhrisatay, saliga nabiga iyo maaragtay aad badisid, saliga nabigana aad badisid ayaan ku rajeynayaa. marka intaa laga yimaado, muuqaalkan waa muuqaal aan rabo inaan kula wadaago qodobo noloshaada wax badan ka bedeli doono hadduu ilaah ka raali noqdo. haddii aad qodobadan samaysid, qaabkaad u samaysidna aad dib u fiirisid, hadday wax ka qaldan yihiin aad saxdid, hadday wax ka qaldanayn oo si wanaagsan ay kugu socdaanne aad markaasi sii joogtaysid oo aad sii hormarisid. dhalinyarada amaba qofka dhalinyarada culays way soo qoraan. marar waxaa jirta noloshu aysan qofka u dhaqaaqaynin, noloshu culays uu kala kulmayo, wax kastuu isku dayo uu ku fashilmayo. marka qodobadan marka haddii at least waxaan isdhihi karaa way ku caawi doonaan hadduu ilaah ka raali noqdo. mararka qaar aniga ayaa dib isugu laabta oo sameeya, maalin walba joogteeya, waqti walba ku dadaala inaan si qurux badan aan u sameeyo, aan hagaajiyo oo aan isku dayo in sidii si ka qurux badan hataa mararka qaar aan u hagaajiyo markaan dareemo culaysyo nololeed, buuq iyo in aan waxyaabo ku guuldareysta markaan dareemo ayaan xataa ku dayaa inaan sii hagaajiyo. marka haddii aad dhalinyaro tahay noloshay waxba iska kaa bedelaynin, nolosha ku dhaqaaqi laadahay, bal 5 qodob samey, way ku caawi doonaan. qodobo kale iyo waxyaabo kale oo ku caawi doona hadday jiraan ama kaa caawi karana markaa samey oo maaragtay badso aqoonta iyo dadka kalena wax ka kororso, wayna ku hagaagi doontaa insha allah. noloshuna mar walba ma sii adkaa doonto. marka qodobka koowaad waxa waaye calaaqaadka adiga iyo allah subxaanahu watacaala idinka dhexeeya, adiga iyo rabbigaaga calaaqaadka idinka dhexeeya ama calaaqada idinka dhexeysa ama xiriirka idinka dhexeeya waa sidee. oo marka hore inaad noloshaada xaggaas ka fiirisaa. aniga addoonka ah, dunida lay keenay, qorshe la ii keenay, qofka ii keenay uu ilaahi subxaanahu watacaala uu yahay, oo wax walbaan u baahdo, garab istaag, arsaaq, shaqo, nolol siinaya qofka hadduu yahay ilaahi subxaanahu watacaala. maxaa weeye marka calaaqada igala dhexayso, waa sidee calaaqada rabbigayga iyo aniga naga dhexayso. haddii calaaqadaadu ay tahay calaaqad aan wanaagsanayn oo xiriirka rabbigaada aad la leedahay uusan ahayn xiriir wanaagsanayn, isku day inaad wanaajisid. haddii noloshay ku dhaqaaqi laadahay culaysyo aad dareemaysid oo wax walba isku daydid aad ku fashilmaysid, waxba kugu soo kordhaynin, yacni bal isweydiitaa. waxaa lahaa aadanaha, maskaxda qofka aadanaha waxay wax ku fahantaa ay wax ku garataa su-aal isweydiinta. marka inaad meel fadhiistid, aad dadka ka dhex baxdid,
waxaad isweydiisaa bal su-aal isweydii. su-aalaha isweydiinaysid waxaa ka mid ah calaaqaadka xiriirka aan la leeyahay rabbigayga bal waa sidee, maxaa ka yara qaldan, noloshayda isbedel ma dareemayo, culays nololeed baa dareemayaa, muruga ayaan dareemayaa, stress ayaa dareemayaa, noloshu ima dhaqaaqayso. marka bal calaaqada igala dhexaysa rabbigayga subxaanahu watacaala waa sidee, taa isweydii. markaad isweydiisid maskaxdaada saad bay wax ku fahmaysaa, sidaa ayay wax ku garanaysaa. marka haddii calaaqada ilaahay kaala dhexeeya ay tahay calaaqad aan wanaagsanayna wanaaji. ilaahay calaaqaad kaala dhexeeya ama xiriir kaala dhexeeyo hadduusan ahayn mid wanaagsan, wanaaji oo dib ugu laabo salaadahaaga, soonkaaga, sakaadkaada, xumaanta wixii lagaa reebay inaad ka reebtanto, wixii lagu faray aad qabatid, dib u fiiri. way dhalinyaradu maanta kuma baraarugsana, mana fahansana. noloshu waxay u maleeyaan in meelo kale laga haysto, in aadana kale haysto, in dad kale ay sira qudhigayaan, in dad kale ay dhibaataynayaan ayay aaminsan yihiin. laakiin midda ay iloobeen waa calaaqada rabbigooda ay la leeyihiin. qofkan calaaqada hadday wanaagsanaato nolosha kaloo dhan way iska wanaagsanaanaysaa. si marka calaaqaadkaada u wanaajiso waxaad isweydiisaa salaadeedu waa sidee. ilaahay waxaa la yidhahdaa addoonkiisa, addoonka iyo rabbigiisa waxa isku xira waa salaada. salaadeedu waa sidee, salaadaha waqtigooda maku dukadaa, weyse qaadka salaada waa baabka laga gala salaada, waa weysada. ma daahirsanahay, dhar daahirsan ma wadaa, weyse qaadkayga si fiican ma u guday, shaydaanka miska naaray, noloshayda waa sida. markaa taa isweydiisid ayay nolosha ku qurux badnaanaysaa. oo salaadaas joogtaynteeda, waqti ku dukashadeeda, ilaalinteeda, maxaa la yidhaahdaa inaad macnaha yacni aad wanaajiso weysada, inaad iska ilaalisid najaasaadka, inaad libisatid dhar libisan oo qurux badan aad xiratid markaad rabbigaa hor istaagaysid, inaad iscarfiso oo aad maaragta adoo carfaya aad rabbigaa hortagtid. waxaa suurtagala maanta haddii lagu yidhaahdo cv-gaaga soo qaado, shaqa ayaa kambani lagaa siinaya ama interview baad galaysaa, haddii lagu yidhaahdo waxaad xiranaysaa dharka ugu qaalisan, waxaad xiranaysaa tay, waxaad xiranaysaa suud. ilaahi subxaana watacaala markaa hor istaagaysidna waxaad xiranaysaa macaawis yar oo gurigaad ku dhex fadhisid, oo xataa laga yaaba inaadan bil dhaqin ama aysan ahaynba daahir aysan ahayn ayaa suurtagal ah. waxaa suurtagal ah in weysadii aad iska boobsiisid ood idhaafi 50 daqiiqo, bal way igu adag tahay salaada idhaafi inaad balse taas maaha waxyaabaha horumarka lagu gaaro. marka calaaqaadka meesha ka bilow, wanaaji, ilaahayna maaragtay ku shukri. waxaa la yidhahda gratitude-ka waxyaabaha qofka ilaahay subxaana watacaala uu kaga baahan yahay inuu ilaahay ku shukriyo, inuu ilaahay u mahad celiyo, inuu ilaahay yidhahdo ilaahayu aad baa u mahadsan tahay, ilaahayu saaki nabad baan ku soo kacay, ilaahayu saaki waxaad iga heshay addoomadii koonkan inay kor ahaadaan, korkiis ahaadaan ayaad iga yeeshay, ilaahayu arsaaq iyo waasee, ilaahayu cilmi iyo maaragta arsaaq tayiba ilaahayu isiinaa dhexd ayaad ku ducaysid. ducaadkii nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jira aad ku ducaystid, ayaad tasbiixda badisid, ayaad adkaarta akhrisid, ayaad salliga nabiga aad badisid. yacni taas ayaa markaa ku dhisi karta calaaqaadkaaga inuu wanaagsanaado. marka calaaqaadkaada wanaaji, salaadahaaga, soonkaaga waxaana wanaaji. wixii ka dambeeya noloshaada way iska hagaagaysaa, si aayar ugu hagaagaysaa. marba hadduu qofka ilaahay isku xiro waxba kama halaabaan. wax kasto adduunkan wuu ka helayaa. adduunkanna waxa weye wax lagu keenay waa inaad ilaahaygaga caabudaa, waa inaad shaqaystaa, camalkaaga waa inaad shaqaystaa hadaa qare kula tegi lahayd. marka intaa garo, fahan, calaaqada ilaahay wanaaji. qodobka labaad waxa waaye calaaqada labadaada waalidkaa la dhexaysa. ilaahay subxaana watacaala laba qof buu kaa dhex beeray, hooyo iyo aabba ayuu kaa dhex beeray. hooyo ayaa caloosha kugu soo siday, 9 bilood ayay kula rafaadaysay, ay walacaysay, ay dhiig baxaysay, xanuun dareemaysay, aad habeenkii caloosheeda dhexdeeda aad maaragtay ku dhibaataynaysay, aad xanuun ku soo kicinaysay, ay dhiig baxaysay, ay gaajoonaysay, adigoo quudanaya ayay gaajoonaysay. marka yaa waalidkaaga aabbahaaga sidoo kale adigoo rafaadsan oo waxba ahayn oo intaas leeg ayuu ilaahay maaragtay kaa dhex beeray. qofkaad maanta tahayna iyaga ilaahay ka sukow, ayaga ayuu kugu arsaaqay, ilaahay iyaga ayuu kugu arsaaqay. aabbahaaga waxaa suurtagal ah subaxii inaadan arki jirin markaad yareed, waaga markaad indhaha kala qaato inaadan aabbahaadan arki jirin. uu ka lixi jiray, uu shaqay jiray, uu dhagax jibi jiray, uu suuli qodi jiray,
uu rafaadi jiray si adiga uu ku quudiyo, hooyana sidoo kale isaa u rafaadi jirtay. marka labadaada waalid fadlan labadaada waalid baaro calaaqada kaala dhexaysa wanaaji calaaqada labadaada waalid kaala dhexaysa wanaaji wac xiriiri u sheekay waqti la qaado adigoo xataa waqti wax kasta dad waqti u heli kartid aad waqti u heli kar labadaada waalid waqti u hel iska wac waqtiga ku filan iska wac la sheekayso haddaa la nooshahay la fadhiiso la sheekayso warayso waqti la qaado la fadhiiso la sheekayso nolosha way ku qurux badnaanaysaa haddaad waalidka calaaqaadkiisa aad wanaajiso nolosha way ku qurux badnaanaysaa adduunkana duca waalid baa lagu meel maraa wax kastaad aragtidu qof walba noloshood marka gaarayo oo maaragtay la yaqaano oo macaarifa yacni waa qof waalidkiisa ka ducaystay marka waalidkaada ka ducayso calaaqaadkooda iyo xiriirkooda iyo calaaqadooda wanaaji oo ka warqab waqtina la qaado si ilmahaaga berito ay sidaad u samaysay kuugu sameeyaan qodobka saddexaad haddii noloshay ku dhaqaaqi laadahay oo isbedel aad dareemi laada aad samaynayso waxa waaye caadaadkaaga dib u fiiri caadaadku waa qofka waxa bedela qofka waxa noloshiisa bedela waa caadaadkiisa haddii caadaad yihiin iyo haddii caadaad xun yihiin caadaadka xun qofna ma bedelo noloshiisa qofkiis ma bedesho haddii caadaadkiisa xun yihiin hadduu qaadka qamriga xashiishka iyo qashinka uu waqti ku dhuminayo hadduu macsida iyo waxyaabaha ilaahay uu ka xaarantimayo waqti ku dhuminayo noloshiisa ma bedelayso wejigiisa waad dareemi kartaa qofka maanta aan ilaahay xiriir la lahayn waalidkiisa xiriir aan la lahayn ee aan caadaad wanaagsan aan lahayn maanta waad dareemi kartaa wejigooda laga dareemi karaa hadalkooda iska badaa wejigooda iyo shakligooda ayaa laga dareemi karaa qofkii inuu adduunba ku cadaaban yahay oo ku yara dhibaataysan yahay marka waxaad fiirisaa caadaadkaada fiiri waa inaad caadaad la imaataa maxaan qabtaa markuu waagi ii soo qoraxdu ay ii soo baxdo maxaan qabtaa xaggee nolosha ka bilaabaa maxaa ii qorshaa saaka haddaad soo toostay addoon baa waqti u helin addoon baana jaanis kaa helin adiga ilaahay baa kusoo toosiyey caadaadkaada marka raac maxaa ii wanaagsan maxaan qabtaa caadaadkayga maxay yihiin caadaadkaada waxaa ka mid ah inaad salaada waqtigeeda ku tukato waa caadaadka ugu khayrka badan markaad sariirta kasoo toostid inaad caadadaada ugu horeyso ay noqoto inaad jirkaaga nadiifiso inaad afkaaga nadiifiso inaad qabaysato istaahiliso inaad salaadahaaga tukato waa caadaad inaad cunno fiican qurux badan cunto waa caadaad inaad kutaab inta soo qaadato quraan akhristo waa caadaad inaad buuq qurux badan toba bogadkaas waa caadaad inaad iskiilaad barato waa caadaad in naftaada aa hormarisidoo jirkeeda jimicsi aad u samaysid waa caadaad jiimkaa tag isboortaa ciyaartid waa caadaad dabaal aad samaysid waa caadaad inaad marka caadaad la imaatid noloshaada way isbedelaysaa caadaadkuna waa waxa qofka bedela waa qofka waxa bedela haddaadan maanta caado lahayn oo aadan garanayn waxaad qabato ay noloshaada isku dhex daadsan tahay ee aad soo toosayso waxaad qaban karta aad qabato waxaa qaban karin aadan qaban waqtiga kugu dhaco oo aad subaxi saa ku hurdo subaxa kale saa kusoo hurto 10 sano soo socota noloshaada halkaas bay taagnaanaysaa noloshaada halkaa bay taagnaanaysaa isma bedelayso laakiin markaad daadid just caadaadkayga hagaajiyo waa inaan sameeyaa xiskiil waa inaan bartaa luqad waa inaan jiimka tagaa 6 bilood waa inaan jimicsi sameeyaa waa in 6 bilood jirkeygaan kasoo saaray jir qurux badan waa inaan dhahdaa xeerta waa iska dejinayaa xeerta isaaran waa iska dejinayaa waa inaan dhahdaa business yar ayaan bilaabayaa inuu ilaahay ku bilaaliya laga marka caadaadkay ka mid tahay marka caadaadkaada wanaaji haddiiba nolosha aad fahmi weysa meelay u socoto caadaadkaada dib ugu laabo sax oo keliya iyaga sax haddii caada xun leedahayna caadaadka xun iska jooji qodobka afraad oo ka mid ah qodobada ee qofka naftiisa markay wax walba isbedeli waayaan markay nolosha ku yara adkaato markii yacni uuba dareemi waayo isbedel uu dareemi waayo loo baahan yahay inuu ogaado waxa waaye maxaa waqtiga ku dhumiyaa waqtigeyga xaggee ku dhumiyaa horta xaggee geliyaa 24 saacadood haysto horta xaggee geliyaa saaka nin baa waqti u helin waqtigaas nin baa helin 24 saacadood nin baa helin saaka waqtigaas nin baa sariir ka saaran oo naafo noqday nin baa dhaawacmay
ninbaa yani xanuun ku soo booday ayaana u helin. Ilaahay wuu siiyey still waqtiga wuu haystaa, laakiin meesha ku bixinayo waa xagee? Waa sariir buu ku bixinayaa. qaar baa godka ku qaatay 24 saacadood lasoo jaangooyey oo la duugayba salaada duhur lagu dukaday, casirka lagu dukaday. Ya aabuu dhammaanin 24 saacadood, adigu 24 saacadood baa lagu siiyey. weli koonka baa waqti lagu siinaa yani dul saarnaato. marka xaggii waqtigay ku dhumiyaan. maxaan geliyaa? maxaan geliyaa? waxaan yidhaahdaa waxa qofka uu geliyo waqtigiisa waa waxa outputka ah, waa waxa u soo baxa, waa maxsuulka u soo baxa. laba lagu daray waa 4, waa maxsuulka waa maxaa weeye? Waa 4. adigu waqtigaada halkaad gelisan waa maxsuulka kuu soo baxa. haddii aad geliso meelo fadhi, haddii aad geliso qabyaalad ka hadal, haddii aad geliso kubadlaad, haddii aad geliso gabadha ka hadal, ninkaa ka hadal, haddii aad geliso tiktok dhex fadhi, maanta 12 comment qor, maanta 12 qof kaa liita dabakac oo waqti geli oo live-kiisa dhex fadhi oo comment ka bixi oo maanta dhan qosol muuqaaladaas yaryariiska shortiska waqtigaada dilaya, maskaxdaada dilaya, waqti ku dhumi. isbedel ma dareemaysid weligaa ayaa la halis ma bedelaysid. marka halkaad waqtigaada geliso ayaa maxsuul ku ah. waxaa kuu soo baxaya aad kuranayso waa waxa. marka waqtigaada meel fiican oo nidaamsan geli, meel fiican oo nidaamsan geli. wax ku baro, cibaado ku wanaaji, iska tuka salaada xataa iska tuko. camal maad haysaa, salaad geli, iska soo istaag, 2 sunna iska tuko, weyse qaado, afkaaga iska calayo, kutaab yar soo qaado, wax yar akhriso, xirfad yar baro, jiimka tag, soo yara jimicso. waxaan dhan waa waxyaabo isku xiran. waxyaabahan qodobadan kula wadaagay waa waxyaabo dhan isku xiran oo soo hoosgalay nolosha qofka aadanaha. markii wax walba ay qaribmaan, markii wax walba ay istaagaan, waxyaabaha simbalka easiga u baahan yahay qofka inuu noloshiisa ka fiiriyo. wayna markiis weydiisaa xaggee waqtiga ku dhumiyaa? waqtiga xaggee ku dhumiyaa? 24 saac haystaa, anigana 24 saac haystaa. anigoo caasho saaxiibteeda ama cali saaxiibkiisa 4 saacadood haysta. cali saaka wuu ka laxay, waa soo shaqaystay 8 saac buu soo shaqeeyey, bishii lacag baa u soo dhacaysa. markuu soo shaqeeyey waxaa laga yaabaa inuu iskuul aaday, wax soo bartay. caasho sidoo kale adiga gurigii baa fadhiisay, darjigii baa fadhiisay, galabta kubad baad lalaadaysaa, caawo derbigaa la fadhisaa, fadhi ku dirab baad ku jirtaa. marka waqtigaada xaggee ku lumisa? haddii marka noloshaada waxba iska bedelaynin, nolosha ku dhaqaaqaynin, wax walbaad u malays inay istaageen, qodobadaa dib u fiiri. qodobka 5aad ee ugu dambeeya ee markii nolosha wax walba ay dhaqaaqi waayaan, isbedel aad samey weysid, ee wax walba kaa qaldan yihiin, ee aad wax walba ku fashilmaysa aad aragta aad iska fiirinayso waxay tahay ama wuxuu yahay ama waxa waaye maxay yihiin waxyaabaha dib u dhaca ii keena? isweydii maxay yihiin waxyaabaha dib u dhaca ii keena? noloshaada la fadhiiso. haddii aan ku dhahay noloshu ama qofka noloshiisa waxay wax ku garataa ama maskaxdaadana wax ku garataa, su'aal isweydiinta. marka waxaad isweydiitaa maxay yihiin waxyaabaha dib u dhaca ii keena? anigu sideedaba maxay yihiin waxyaabaha dib u dhaca ii keena? marka fahan marka waxa dib u dhaca kuu keena. waxa dib u dhaca kuu keena ma social media faraha badan ku dhex jirtid oo waqtiga faraha badan haystaad ku dhuminaysid miya? waxa dib u dhaca kuu keeno ma saaxiibadaad ku dhex jirtida? dadkaad waqtiga la qaadatid ee aad la sheekaystid miyaa ayagoo aad kuu keena dib u dhaca kuu keena? ma dib u dhaca aniga isku keena? oo dib u dhac sidee isu keenaysaa? ma xadaadkayga wanaagsanayn? ma xiriirka rabbigayga la leha wanaagsanayn? ma meesha waqtiga ku dhumiya ayaa wanaagsanayn? waa isweydii maxay waxyaabaha dib u dhaca ii keena? markaad fahanto waxyaabaha dib u dhaca kuu keenay ama kuu keena ayay noloshaada isbedelaysaa oo aad joojiso. waxaas markaad ka takhalusto oo aad joojiso waxa dib u dhaca kuu keenaya. ma maanta 12 TV inaad iska hor fadhiso waa waxyaabaha dib u dhaca kuu keena? ma maanta 12 inaad TV iska hor fadhiso ee aad ciyaar iska daawato ee aad musalsal iska daawato ma waxa dib u dhaca ii keenaa? waa inaad isweydiisaa. ma dib u dhaca waxa ii keena dadkan ku dhex jiraa
waa inaad isweydiisaa markaad ogaato wax dib u dhaca kuu keena yaa ka takhalustid ee waxaad naftaada hormari kara aad u soo jeestid ayay noloshaada isbedelaysaa simple meel kale ha ka raadinin meel kale ha ka raadinin oo waxyaabo practical ah waa waxyaabo anigu aan daily u sameeyo oo aan maalin walba inaan sidii ka wanaajiyo aan ku dadaalo waa qodobada ogow ku baraarug qodob koowaad ilaahayga i uumay yaa i arsaaqay quruxdan i siiyey yaa caafimaadkan i siiyey maanta iga yeelay inaan koonkan dushiisa ahaado cilaaqadan la leeyahay maxay tahay isweydii wanaaji haddii cilaaqadaada xunta xiriirkaad buuxiya wanaaji labo labadayda waalid cilaaqadan la leeyahay bal waa sidee waa inaad gudahaada ku laabataa waxaan waa wax ruuxda qofka gudihiisa inuu ku laabtaa waa inaad gudahaada ku laabataa hooyo aabba sidee ku ahay xiriirkooda bal ma hooyo bil baa inta isaga diraanan wicin ma hooyo waxba uma dirin miyaa ma hooyo ma wicin miyaa hooyo ma ka ducaysti miyaa aabba ma ka ducaysti miyaa maxay iga qaldan isweydii deep down yourself gudaha naftaada la hadal okay qodobka kale caadaadkaada waa waxa ku hormari kara waa waxyaabaha dib ku dhigi kara waxyaabaha la fahmo waxyaabaha la ogaado waag badan laga qoray noloshu waa xaqiiqada dhabta ah wax qofka bedelana caadaadkiisa waa caadaadkiisa qodobka kale afraad oo ah maxaa waqti ku dhumiyaa horta afaraad ka saawa xagee geliyaa horta xagee ku qarash karayaa horta xagee ku dhumiyaa waxaad arkaysaa qof shaqaynin waxna baranin mashquula meesha keliya laga helo Soomaaliya mashquul baa ay leeyahay isweydii marka xagee waqtiga geliyaa iyo qodobka ugu dambeeya maxay waxyaabaha dib u dhacay keena waxyaabaha dib u dhacay keena horta maxay yihiin markaad ogaatidna ka takhalus gabi ahaanba jooji oo waqtigaada iyo ha ku lumin iyo caadaadkaaga iyo waxaa marka shanta qodob waxaan dhihi karaa waa 5 qodob oo aad u fudud qofka noloshiisana uu u baahan yahay inuu hoosta ka fiiriyo aasaaska markii nolosha ay wax walba dhaqaaqi waayaan yaa ay wax walba ay noqdaan inay adag yihiin ee wax walba tallaabo u qaadid ay yihiin waxaadan ka guul gaaraynin inta uu qodobada qoro xafid ku celceli noloshaada way isbedelaysaa haddii aad rabtid ma inaad sida ahaatid oo sida hadda tahay rabtid inaad ahaatid ee aad rabtid inaad isbedelin ee aad rabtid inaad meeshaada joogtid ayadana choice-kaada iskale waa laga hormarayaa qof baa ku soo gaaraya markuu ku soo gaaro wuu kaa hormarayaa tani qof kale ku soo gaaraya halkaadii baa taagnaanaysaa cidna ma eedeey kartid cidna ma dhaleeceey kartid marka 5 qodob si fiican isaga fiiri hadday nolosha ku dhaqaaqi laada wal noloshaada way isbedelaysaa 6 bilood ee ugu maaragtay sanad ka dhiman dad waxyaabaha iska yara sixi kartid oo aad wanaaji kartid iyadana noloshaada way isbedelaysaa waa laga yaabaa inaad yara fududaysato waa laga yaabaa inaad dhahdo ilaahay xiriir waan la leeyahay calaaqada igala dhexaysa cilaaqaadku waa fiican yahay waalidkayga waa wanaajiyaa caadaad waa leeyahay iyo simple waad ka dhigato waana waxyaabaha dadka boqolkiiba 90 hoos u dhiga waxyaabaha 90 dadka boqolkiiba hoos u dhiga marka dadkana lama bedeli karo sida doonays ma noqon karaan laakiin waxba loo sheegaa marka 5 qodob ayaan bal jeclaystay inaan kula wadaago haddaad isbedel doonaysid choice-kaadiga iskale dooqaadiga iskale gacantaada ayay ku jirtaa cid kalena ha sugin adiga hadda bilow marka muuqaalka halka ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo inta muuqaal mid kale mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum